وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وبعد waxaynu ku sii dhex jirnaa duruustii ku saabsanayd axkaamta bisha Ramadaan ee uu inoo soo jeedinayay fadiilada Sheikh Muhammad Sheikh Umar Dirir oo darsigeena ugu dambeeyay sheekhu uu kaga soo hadlay xukunka soonka bisha Ramadaan iyo cidda uu ku waajibayo iyo waxa bisha Ramadaan ay ku waajibto iyo aragtida bisha Ramadaan darsigeena maanta waxaynu sii dhex gali doonaa qayb labaad oo kamid ah axkaamta bisha Ramadaan فضيلة الشيخ هدي أنكم بلا سؤال شوقه الرئيسة وحدرسي هورا كسو هذا شيء جود أهان شروط الصوم كولية هي سؤال شو ما أنتوا الرئيسة وحين نقنسا وما هي شروط أيكو أستحضر بشهر رمضان صوم كيلو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وعشرة شروط لا يقان شروط الوجوب وعبادة واجب لماذا هذا الشيكته هي شروط لا يقان شروط الصحة ومرك الشروط على جهله وقفك وكان صحة يصومك ملها قار كود واسكمد ملها قار كود ويكوك الدوين شروطا لا يقان شروط الصحة دي قفك اللي جوا صوم كيبان كان صحي شروطها محكمة قف كنينو يهي قف ظاهرة ظاهر وحلو قد شيء قبل أن أنا مشغول سنين وديجي عادة يكيد المدى أنا الهين حالة دا قبل ديجي عادة هاي يكيد المدى هاي إلا هذا الشرع يقول كفذو دي عبادو إنكي صوم كي الصلاة دي ولا كفذو دي سداد درادد ويسوق الله ينساونه ما كان أنصح يصومك شرط جاس وشروطه كم دي هاي عبادة أي كو أنصح يصوم شروطها وحكم إذا قف كان يدين ونيوده أركانتنا وين نقول يساش لنا على شرط بي كتاع وقف كهدي ونيدي كتاعه وحماشي كبحي شرطي أمر ركني إلهي سبحانه وتعالى كهذا وحول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين dadka waxa la faray in Ilaahay cibaadada u gooni yeelaan aayada waxa culimadu dariishadaan niyada nabiguna kaleey salaatu wasalaam waxa uu leeyahay inama al-a'malu binniyat amalku niyadu ku xidhan ku ansaxaya amalada ansaxooda iyo aqbalkooda iyo tirsigooda waa in la niyoodo oo caadadii iyo amalkii waxa kala saaraya niyadii qofkii maanta ma abateed xuma haysa معونادي بانو جعلين مسوي حواف حرية إلى هاي درادية صوم حلو كلا صاري حقف كلا صاري نيادة نيادة مركا وحيابة يدا قد يجد وصيب بهن تبعد على العلماء الجزم والتعيين والتبييت صدح لا شرط تبع وحران بدواء جزم نيادة ضواء إن أنا هدي لهين لكن وين يقانت مركا قفك هدو إلى هذا بريتا هداي رمضان نقطنا وان سوميا وان نيوده هدانay رمضان hayna deema soomayo tan iyo lama idhaaw niyadu waa inay go'aan waa inaad ku qaadataa saasa yeelaya taraddud waa noqnoqotaa kale marka taas oo kale waxa la yahay al-jazm niyo go'aan baa loo baahan yahay tacyiinna waa in loo baahan yahay soomun أيان سومي دونا مايا وصوم رمضان صوم النذر صوم الكفارة صوم النفل صوم كدوان لا يقانا وحيوس أدوك تاي أرورت وين رمضان سوميس حتى هذا وحكى لا شيء أما صوم مايا صعن ما يسوى إن صومك وياي معين بين علماء طبيعتنا ولا جمارمان طبيعت وين هبين كيسوني يودا وحديث علماء قاركود مرفوع كتل المامين قاركودنا أي موقوف كتل المامين لكن هذو موقوف ين له حكم الرفع لأنه مما لا مجال له في الرأي أو حيوان رأي قال لك أوران كرين أيا وحولي من لم يجمع الصيام بالليل فلا صيام له قفكو هدانو هبين كي سونيونين صوم مالنتي ومجرو علماء مركا لما قول بيلينو قاركود waxay dhaadaan Ramadaan bilowgeedu buu soo wada niyoonaya gabigeeda oo dhan وعمل اسكو حريصان رمضان
oon la ogolaynba in la kala jaro markaa niyadeedu waa bilowga waxay markaa leeyihin waxay la mid tahay xajka camaladiisa inta la wadayo dhan xagga horuunbaa laga soo niyoodaa ee niyooyin kala googo-an uma baahdo waxayse culimmadu u badan yihiin habeen walba inuu u baahan yahay niyadiisa gaarka ah markaynu eegno xadiidkaa niyada ka warramaya ee uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofkaan habeenkii soo niyoonin marka habeen waliba niyo gaar u baahan yahay niyaduna ma aha erayo fara badan oo la yidhaahdo sidii aynu naqaanay nawaytu sooma qadin can adaa'in fardi shahri ramadaan taasi may soo aroorin daliilna ma laha rasuulkana kamay soo aroorin calayhi salaatu wasalaam madhabta shaaficiyadunbaa waxay idhahdaan niyada xarunteedu waa qalbiga ku dhawaaqeeduna waa sunne sunnahaasunbaanay daliil u keenin marka way sheegeen in qalbiga niyadu ay tahay intaasunbaana lagu daynaya maadaam ku dhawaaqi aanu daliil lahayn wax niyada lagu dhawaaqaya xajkaa jira oo nebigu ku dhawaaqay calayhi salaatu wasalaam labayka xaja niyadu markaas waa taas weeye markaa shardiga u horeeya aynu tilmaamaynaa waxa weeye dahaaradaas shardiga labaadna waa niyadaas oo isaguna shuruudii ka mid a marka aynu dhinac kale ka eegno arkaanta waynu ku dheeraynayna waa su-aal dee faraara leh waxaa sii weheliyay iyaduna alimsaak can ilmuftiraat oo dhinacan shuruuddiibuu ka yidhi dhinacanna waa waxa weeye arkaantii qofku inuu iska daayo wixii soomka ka jabinaya waa wixii la cunayay iyo wixii la cabayay iyo galmadii iyo hadalkii xumaa waynu geli doonaa waynu arki insha allah waxaa loo yaqaano mubdilaatu siyaad ee soomka jabiya qofku waa inuu iska daayaa hadduu dayn waayna foosto gun labu dhaaminaya waa soomkiisii iyo buray buu dee iska sii wadaagu marka taasina runtii waxa weeyaan qur-aanka inoo sheegayo ilaahay baa waxau ihi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd alabyadu min alkhayd alaswadi min alfajr habeenkii iska cuna oo cabba oo xaaskii la kulma jeeruu waagu caddaado markuu waagu caddaadana ha la joojiyo ilaa maalinku dhammaanaya qoraxdu dhacayso marka shuruudaha kuwaasa ka mida markaynu ku noqonno waa gabadhi inay daahir tahay qofkii inuu niyoodo wixii ka burinayayna afka ka haysto wallahu aclam jazaaka allahu khayran fadiilat shaykh darsigeena su-aashiisa labaad waxay noqonaysaa maxaa ay yihiin tiirarka soomku ama arkaanu siyaam horaan usoo qadimay taasoo dhinacna waxaynu shuruud bay ka tahay dhinacna arkaan bay ka tahay marka shay waliba wuxuu leeyahay shuruud iyo arkaan salaadu shuruud bay leedahay iyo arkaan xajku waa sidoo kale wax kastoo la dhisayaa cibaadada iyo qayrkeedba shuruud iyo arkaan buu leeyahay siiba cibaadada marka shuruudaha soomku kuwa aynu sheegnay bay ahaan kuwa qaar ka mida baa marka arkaantiya labadan u dambaysaynu sheegaynay qofkii way soo koobantahay arkaanta soomku tiirarku ku taagan yihin sida kuwa uma badna xajka iyo salaada iyo uma badna ee way soo kooban yihin waa laba inuu qofkii habeenkii niyoodo iyo inuu afka ka haysta wax kasta oo ka jabinaya soomka oo aynu xagga dambe ka tirin doonno insha allah labadaas weeye arkaantiisu jazaaka allahu khayra waxyaabaha u badan ee soomka dadku shacairta waa lagu yaqaano waxaa ka mid a suxuurta marka suxuurta xukunkeedii muxuu noqonayaa macnaheedu ma faral baa mise waa sunne waxa weeyaan suxuurtu waa sunnayaashay ka mid taa macnaheedu waxa weeye haddii qofku aanu haleelin habeenkii inuu suxuurto ama wuxuu ku suxuurtaba uu waayo soomkiisii waxba ma noqonayo arrintaasi soomaalidu qalad bay ka aaminsan yihiin qofku wuxuu odhanayaa maalintii haddaad aragtay isagoo cunaya maxaa dhacay xalay bay iga tagtay buu leeyahy maxaa kaa tegey ilaan soomku maalin buu ahaa ee habeen mu ahayne suxuurtii baa iga tagtay tahay hadday suxuurtii kaa tagtay maad iska soomtay suxuurtu shardi umay ahayn inaad soonto wuxuunay ahayd un camal sunno ah oo mashruuc ah laakiin haddii aanu ahayn shardi iyo rukni toona ka tegiddiisa aad ka tagtay inaad iska soontaabay marka suxuurtoo kaa tagtay macnaheedu maaha inaad soomka iska daynayso suxuurtu waxa weeyaan sunnayaasha ayay ka mid tahay haddii laakiin qofka ay ka tagta bela ma jirtee soomkiisi wuu iska sii wadanaya jazaaka allahu khayra isla su-aal kaloo iyaduna suxuurta laftigeedii ku saabsan
goorma ayuu noqonayaa waqtiga suxuurtu su'aal kale iyaduna la sii xidhiidha Soomaalida qaarkood baa waxay yiraahdaan 15 hore ee bisha Ramadaan waa la soo horeysiinayaa suxuurtii waa la dejinayaa 15 dambana waa la dib dhigayaa marka wax asal ah sharciga ku leedahay suxuurtu waqtigeedu waa habeenkii laakiin waqtiga fiican afdalka ah waxa weeye markuu waagu soo dhawaado laba arrimoodba taasi waa ka faa'iido waa sunni rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo la waafaqayo iyo qofka faa'iido ay u leedahay de wuxuu ka dhigan yahay qof quraacday oo kale waagiyo soo dhaw hadii uu suxuurtu wax cuno halkii quraacday u galaysa tamartiisii ay kordhinaysa nabigu alayhi salaatu wasalaam waqtigiisa isaga oo xusaya aan ilaahay xadiidka Zayd ibn Thabit warinayo ayaa wuxuu leeyahay waxaanu la suxuuranay nabiga alayhi salaatu wasalaam waxaanu la suxuuranay rasuulka kadibna salaadaan u kacno asxaabtu waxay yiraahdeen intee u dhaxaysay salaadii subax iyo suxuurta marka isagu wuxuu qiyaastii ku siiyay qiyaas ay isla wada fahmi karayaan oo dadka muslimiinta qiyaas u noqon karaysa ahlul quraanka marka wuxuu qadru 50 aaya konton aayadood in la akhriyo konton aayadood in la akhriyo ma badna 10 daqiiqo ama wax ka yar intaas u dhaxaysay buu marka asxaabtu leeyahay marka taas waxay tilmaamaysaa in lagu dhaweynayo waaga qadiyada kale ama su'aasha kale sheegtay 15 hore bisha iyo 15 dambe in la kala saaro wax asal ma leh waa isqancinaynu leenahay inagu baa isku qancinay mooyaane 15 hore bisha iyo 15 dambe waa isku mid nabigu alayhi salaatu wasalaam waxa kale uu tilmaamay suxuurtu inay leedahay barako tasaxaru fa inna fi as-suhuri baraka suxuurtu baraka leedahay suxuurtu ma aha inay tahay wax badan oo qofku cunaya hadaad abateedba weydo waxa xadiidka loo xasano nabiga ka sugan alayhi salaatu wasalaam uu tilmaamaya in uu qofku ku suxuuran karo hatta biyo kababiya tasaxaru walaw bi jur'ati ba antugo ama liqma biyaha oo aad hal mar liqdo ayaad ku suxuuran karaysa intaas kugu filan marka kari weyda wax kale oo cashadii aad ka dheregsan tahay sunnaha iyo barakada uu nabigu sheegay si aad u hesho sharaab cab خلاص انت ساك وفلان مر افراد وحو نبي اسغو inagu dhiri gelinaya suxuurta waxa uu siyaamki ama soomki ahlul kitaabka yahuuda iyo nasaarada iyo kuwii naga horeeyay soomkooda iyo soomkeena waxa u kala farqiya aklatu suxuur suxuurta la cuno koodu muu lahayn laakiin keena leh intaas oo nasba mar haday isugu yimaadeen suxuurtu in lagu dadaalo weeye miisaanka ay leedahayna halkaas u yaala shariicada الله أعلم جزاك الله خيرا دنك kale waxa isaguna kamida waxyaabaha aad bisha Ramadan dadku ay u yaqaanaan afurki marka waqtigiisa isagana goormo noqonaya afurku dawa daruuri ah qofku inuu afuro habeenkii waa waajib oo aanu isku xiriirinin soomkii maanta iyo ka bari lama ogola in isku xiriiriyo oo xagga sharcigeena wisaalku ma banaana marka habeenkii wax cunaa laga maarmaan waxa laakiin isagana sunna ah illa dadajiyo oo hadii suxuurta la dib dhigay afurkana waa la dadajinaya laakiin degdegaasi macnihiisu maaha qoraxdii oo dhicin illa qadimo maaha ee marka la hubsado inay qoraxdu dhacday madow kale la sii sugi maayo ee waa in horay laga afuro xadiidkii saxiixaynka rasuulku wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ومدن خير كيباي كسغنانيس خير النبي محمد وجديي iyo sunnada nabiga raacidiisu khayrkii u lahaa inta ay afurka dadajinayaan afurka kolaadii qoraxdu dam tiraado inaga ka daba taga lama oran qoraxda oo ama dayurad raaca ama miidana min naardeer fuula laynama oran qoraxdu qolay u sii muuqataa may dhicina way sii socotaa inagu ma inaga qarsoonto marka inay naga qarsoonto uun baa muhiim oo ay isheena ka labidho iyadoon fooqiyana ku gudbanayn
buurana ku gudbanay bannaankana taagantay kol hadday ka libidhay oo ay ku muuqato wala afuray afurkana insa loo dadajiyaabaa fiican oo sunnihii nabiga calayhi salaatu wasalaam waqtiga uu sii sheegaa waxa uu idaa aqbala al-laylu min haahuna وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم على معنى حديث مرد هذين هلكا كصوب الدامة مالك كل هلكا كلبناه ومذوقي هلكا هو سكسوق هذين مالنتين هلكا كلبناه قرح دي دم تلاضو وأفري ها أفرا قفكي صومنا سلادي مغربنا ويتاجن تاوية معنيه والله أعلم. جزاك الله خيرا. maxaa uu noqonayaa waxa uu qofku ku afuro iyadoo waqtigeena cuntooyin kala duwan dadku ay ku afuraan maxaa ugu haboon inuu qofka muslimka ay ku afuro Anas bin Malik Allah ka raali noqdo wuxuu ahaa xokaynii nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnaha wax badan soo wariyay waxa uu leeyahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku afuri jiray timirta loo yaqaan rudab naga timiriinooma baxdo ma hayne waa xasiida timirta fiican haddaanu taahayninna timirtan kale caadiga ah ee aynu inaba haysana ayuu ku afuri jiray hadduu taa waayana xasawaatin min maa xantoobooyin biyaa ayuu qaadanayaa marka mid waliba faa'iidadeeday leedahayoo timirtuna macaanka ay leedahay calooshan madhnayd dheefshiidkeedana way u fiican tahay tamartii iyo gluukooskii qofka soonku uu ka tagsiiyey imika u baahnaana dhaqsay ugu soo celinaysa haddii taa uu waayana caafimaadka qofka iyo culayskii ku dhacay gaajada daraaddeed beerkiisa intaba waxa u fiican biyaha saafiga ah inuu qofku ku bilaabo kadibna raashinkii kale uu isticmaali lahaa ayuu ku sii xigsiinayaa ama sharaabkii kale uu cabbi lahaa marka waxa lagu afurayana intaas asxaabtu ay noo tilmaameen inay dhaqankii nabiga ahayd calayhi salaatu wasalaam wallahu a'lam. su'aasha ugu dambaysa casharkeena maanta fadiilada sheekh qofku muxuu sameeyaa waqtiga uu afurayo maxaa laga doonayaa qofka muslimka ah inuu sameeyo waqtiga uu afurayo way ku fiican tahay haddii awood u saamaxayso inuu dad afuriyo ama halkana kula afureen ama cid kale afur ha siiyee ama xabado timiraasi ama sharaab ama biyo inuu ka qayb qaato muslimiinta afuraysa afurintooda taasi aad bay wanaagsan tahay oo qof wal oo uu afuriyayba intuu ajriga ka helay soomkiisa in leeg bisna ka helaya taasi waa mid weeye oo inuu ku dadaalo cadadka u badan ee kari karto inaad afuriso waliba dadkaan afurka helaynin baahidu ay hayso waxa labaad oo haboon iyaduna inaynu cibaadooyin dhowr aynu kulminaynaaye waqtiyada ducada la aqbalaa sidoo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam marka uu qofku afurayo inuu ducaysto in yar intaanu afka gelinin ama markuu afka geliyaba waa cinda alfitri afurka uun hareerihiis inuu qofku ducaystaa baa wanaagsan ducada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahayd sida uu xadiid xasan tilmaamayo ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى هراتك وأنا قتجي حديدتي كل كي ورق الله نهاتا وذقيين أجري أنه إلهي كسوينينا إن شاء الله واسقمي وإلهي بل لو يدي سنة أجري وحين وردينا وإنه إلهي أجري إيا ثواب إيا أبا المرين وين النصيو مركا دعاء اسكعامها ونكسنه خاص يا عام بله أدنى الدعاء سنة يسأل كأوبتك أمة إسلامك آخرة الدنيا دعاء صدق الدعاء سنة يسا وقتيا قفك ومستجاب الدعوة يهوي مركا عامل هذا اللي قبنا ويلا استكمله والله أعلم. جزاكم الله خيرا. درس جنوات إن شاء الله تعالى كسيم وجوجيا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.